bal Soomaaliya maxay ka dhimaysaa adiga baan ku weydiiyay wadan Somaliland la yiraahdo oo la ictiraafay oo markaa qurux badan oo awood yeelatay oo xoog yeelatay walaalayihiin oo isgarab taagta oo hadii mid kamid lagu gafo oo ka kala yiraahdo faraha kala bax wanaag mooyaan xumaa u soo dhalinaysa maxay tahay ama waxay ku waayaysaa maxay tahay xaasidnimo weeyaan waxay ku diidaysaa waa xaasidnimo sida anigu hadii tusaalahaas oo kale aan sameyn la aan xaasidnimo ugu diidayo iyaduna xaasidnimo ugu diidaysaa maaha wax kale oo hawlo Allahumma salli ala maxay kaga xiran ama ay ku waayayso marka waxaan leeyahay wadadku kulli waa walaalo ilaahina islaamnimada marka uu ka waramayay ama wada jirka ama waxyaalaha uu ka waramayo mar walba horta islaamnimada laga warama innamal mu'minuuna ikhwa mu'minuunta ayaa walaala ah madax hadii la doonayo cid dadka kalidood u talisa waa madax islaam madaxda la rabaa laakiin diintu si gaar ah xataa Soomaali uma sheegin oo Soomaalidu hamidowdu diintu ma oranin nasaba ilaahay subhanahu wa ta'ala tilmaamay inna akramakum inda Allahi atqaakum nasabka ilaahu tilmaamayna li ta'arafu ba ilaahay inna ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'arafu ta'arafkaas baa la yiraahdo muslimiintii kale laakiin iskaga dhawidin inna akramakum inda Allahi atqaakum hadii aad magaca Soomaaliyeed uu la doonayo te Soomaalidu way farabadan Djibouti baa Soomaaliya shan Soomaaliyeed baa jira hadii walaalnimo la doonayana inaba muuna ikhwaa meesha taala marka waxa weeyaan ay kelmad ku urursantay kale waxa weeyaan waarnina calafkiisa lama cuno dal walibana wuxuu kasbanayo Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala u qoray walaalnimaduna waxa weeyaan kelmadda tawxiidka in lagu walaaloobo wanaagana la isfaro xumahan la isku diido ninkii gabiyo wuxuu yiri midhow aabaha iyo waxaan madal ka soo gaaray rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi masa inaanu nahay oo xigtana meerta noo tahay macna ragga waxa lagu la dhaqmaa waxa weeyaan waynu simannahay ee wadi hoos joogta iyo tashan garan maysid ragga waxa loo lama yimaado wiliga taa ogow wuxuu yiri masa inaynu nahay oo xigtana meerta noo tahay walaalnimada iyo Soomaalinimadu xigtadu meerta inoo tahay waa gaar halkan inoo taala laakiin wixii maamulaha qof waliba ay sidiisa isku maamulayso dawlad waliba ay sideeda isku maamulayso deeta kale inay ku faraxdo wixii ka dhimanna ay markaas ugu tarto oo ay ku farxdo umba meesha taala intaan hadan kaga baxo kali kelmadu iska kooban tahay qodobka saddexaad waxaan u guurayaa ahaa Itoobiya iyo Soomaaliya way isqaanaan ama way iscaab yaqaanaan Soomaalidu waxay dhahaan ninka ciirtaada dhama ay ceebtaada yaqaana ninka ciirtaada dhama ceebtaadu yaqaana macna ninka uu xaafadun kula joogo oo gurigaaga uu joogo ceebaha oo dhan buu garanaya weeyaan Itoobiya caarka Soomaaliya ilaalisa hablaha Soomaaliya iyo dumarka Soomaaliya iyadaaba ilaalisaba nin caarkaaga iyo hablahaaga iyo qiimaha iyo sharaftaada ilaalinayo adiga ku dhex joogo kugu badan inaad markuu meel kale arrin kale ka galo aad tira halkaas aan soo qarxinaya waxa ka fiican inaad tira horta kanoo iga tag Soomaaliya wada garanayo Soomaaliya gobolo dhan oo kamida wadanka Soomaalida soo Itoobiya ma maamusho oo waxaan ku iyaduba gacanta kuma haysa amnigiisi maxaa markay ka ay halka ku maamulayso ee laga saari karinaya ama aanad kaba saari karinba kama soo saari kara imka waxay sida saxdii tahay dawladda Soomaaliya haday doonayso Itoobiya wax ku tiraa horta inta Itoobiya iska saarto in iyadu dalkeeda maamulato oo bal inta yar iyadu ka mas'uul tahay ay iyadu noqoto cid gacanta ku qabsatay ka bacdina waxa intii ka dhiman ay tiraa halkan uu lagu tagaynaa nin laakiin gurigaagiiba joogo waxa ku ciirtaadii cabaya oo ceebtaadii yaqaan inaad tiraa meel kale lagu tagayaa waxba macna ma soo kordhinayso wax macno ay soo kordhinaysaa male